hagaag dhegeystayaal imakana waxaa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda Soomaalida aanu kaga warramaynay. barnaamijka horena waxa ugu dambeeyay aanu ku soo qaadnay markii boqorkii dalka Itoobiya boqor Haile Selassie uu ka sheegay magaalada Qabri in dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee reer Itoobiya. intaa kadib haddaba waxaa sii xoogoobay doonistii Soomaalidu ay doonayeen inay madax bannaan helaan koonfurta iyo waqooyigaba iyadoo markaasi ay hormood ka ahaayeen xasaabtii SNL iyo SYL. عمر عبد الغالب oo ka hadlaya ololihii gobonimo doonka bal hadda mar kale aan idin ku celino bishii May 1959 ayay soo saareen qaraar ay leeyihiin waxaan siinaynaa xorriyad istiqlaalkooda ha qaateen 17 February ee sanadku markuu 60 yahayna election ka dhaco doorasho ka dhaco halkaas aad safxad cusub ka bilaabantay markaas dadkii kaceen oo maxaan ku yiraahdaa shucuurtooda samada tagtay yariyo weyn rag iyo dumar markaas aad afar xisbi oo siyaasadeed ayaa markii waqtiga yimid ka qayb galay doorashadii SNL NUF USP iyo SYL doorashadii markii la galay waxaa deeto helay aqlabiyadii xisbigii la oran jiray Somali National League 20 kursi ayuu helay USP waxay heleen oo la oran jiray United Somali Party 12 NUF National United Front kursi buu helay halka waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo markii dariiqada Ingiriiska la xisaabiyay dadkii vote-ka bixiyay SNL iyo USP waxay heleen 55 boqolkiiba 55 NUF-na dadkii markii la xisaabiyay waxay heleen 45 boqolkiiba 45 laakiin haddana nidaamka Ingiriiska ayaa ah kursi walba laba nin la kala dooranaya haddii mid keeno kun ka kalena uu 990 keeno ka kun ka helay amba la siiyay u qaadanaya sidaas awgeed ayay taasi ku dhamaatay kaasi waxa Umar Arte Qalib oo ka hadlayay sidii lagu helay gobonimada iyo doorashadii ka dambeysay bishii May haddaba labadeedii ayaa hogaamiyaal ka socday Somaliland ay yimaadeen magaalada London si loo jaro xiriirkii isticmaalka ahaa ee ka dhaxeeyay Ingiriiska waxa waqtigaasi loo ogolaaday in xornimadooda ay qaataan 26 Juun sanadkii 1960 wafdigii berigaasi London yimid waxa kamid ahaa محمد حاجي إبراهيم عقال بريغاسي ورئيس أوسية لانتا أفضل الصومالية إيدا عدا بي بي سي دا وحا وعقال كويجي waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay iskroolo secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan mareynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxa ma dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asaxatee in meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dadka labadii casho hore aan saragnayba baadniin arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baarayay hadalkii waxa weeye guntiisi bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dowladda haano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiis noqday maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa kaloo isla maalintaasi ka hadlay hawsha u taala dadka Soomaalida dowladnimo loo qayliyaa dowladweynaha doonina la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylina helay dowladnimadiina asaata ka adag wuxuu yaariga ka sii adag maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dowladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynkaas way naga tegaya July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniga iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ku hadhay baa hawl haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga baxajnabi inagii maanta leenoo kala tag inaan isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay wama hada lim mugdigi lays lagu meeriyo
وما هذا اللي مبتغي ليس له ميريو ما انتبه إليه وين موقنا هذا اللي ما بيحبنا هذا اللي ما بيحبنا. waa tahay dhegaystayaal haddaba soomaalidii talyaanigu xukumayey iyo tii ingiriisku xukumayeyba waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay kowdeedii sanadkii 1960kii dhinaca waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horreeyey. maalintii calanka la saaray magaalada hargeysa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare saahidiinta islaamkoe subcisaa jimcayaashiyo sibyaanta iyo haweenku calankaysa hadsheenow cidina kaanayna siinine saatir noogu yabohayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare. allah u naxariistee cabdilaahi suldaan timacadde oo ka gebiyey habeenkii calanka la saaray magaalada hargeysa.